Samiya Suluhu Hassan waxay dhalatay 27 Janaayo 1960. Waa siyaasi reer Tanzania oo noqotay madaxweynihii lixaad ee Tanzania tan iyo 19 Maarso 2021, iyadoona xilka la wareegtay dhimashadii madaxweynihii hore ee John Magufuli 2 maalmood ka hor. waa xubin ka tirsan xisbiga talada haya ee Chama cha Mapinduzi ee CAM. waa haweeneydii ugu horeysay ee qabata jagada Tanzania tan iyo Sylvia Kinigi oo si kumeel gaar ah u noqotay madaxa mid ka mid ah gobolada dalka Burundi ee sanadkii 1993. Suluhu waxay noqonaysaa haweeneydii saddexaad ee madax ka noqota dowlad xubinka EAC marka laga reebo Kinigi oo ka socota Burundi iyo Ageta Uwilingiyimana oo ka tirsan Rwanda. EAC waa xubin ka mid ah bulshada bariga Afrika, waa urur goboleed ka kooban 6 dowladood oo iskaashi leh, waxayna kala yihiin Jamhuuriyadaha Burundi, Kenya, Rwanda, South Sudan, Tanzania iyo Uganda, iyadoona xarunteedu tahay Arusha, Tanzania. Suluhu oo dhalasho ahaan ka soo jeeda Zanzibar waxay wasiir ka noqotay ismaamul goboleedkii intii uu jiray maamulkii madaxweyne Amini Karuma, waxayna xubin ka noqotay baarlamaanka deegaanka Makunduchi sanadihii 2010 ilaa iyo sanadkii 2015. waxayna sidoo kale ahayd wasiir dawladda xafiiska madaxweyne ku-xigeenka ee arrimaha ururada sanadihii 2010 ilaa iyo sanadkii 2015. sanadii 2014 waxaa loo doortay gudoomiye ku-xigeenkii golaha ansixinta ee dastuurka loo xil saaray qoritaanka dastuurka cusub ee dalka, waxayna noqotay haweeneydii ugu horeysay ee madaxweyne ku-xigeen ka noqota Tanzania kadib doorashadii guud ee 2015. Suluhu iyo Magufuli ayaa mar labaad loo doortay sanadkii 2020, waxayna dhameysay waxbarashadeedii dugsiga sare sanadkii 1977 iyadoona xilligaasi shaqo bilowday. kadib waxay qaadatay koorsooyin gaaban oo waqti haaf ah. sanadii 1986 waxay ka qalin jebisay macadka horumarinta maareynta ee jaamacadda Mazumbe iyadoona dibloome heer sare ah ka qaadatay maamulka dowladda. intii u dhaxaysay sanadihii 1992 ilaa iyo 94 waxay wax ka baratay jaamacadda Manchester waxayna ka qalin jebisay kulliyadda dhaqaalaha. sanadkii 2015 waxay ka qayb qaadatay barnaamijkeedii ugu horeeyay ee dhanka horumarinta dhaqaalaha bulshada iyada oo loo marinayo barnaamij wadajir ah oo u dhaxeeya jaamacadaha Tanzania iyo jaamacadda Koonfurta New Hampshire ee ku taal magaalada Manchester ee waddanka England. shaqo kadib waxbarashadeedii dugsiga sare waxaa laga shaqaaleysiiyay wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta iyada oo karaani ah. markii ay ka qaadatay shahaadada maamulka guud waxay shaqo ka heshay mashruuc ay maalgelisay barnaamijka cuntada adduunka. sanadkii 2000 waxay go'aansatay inay u tartanto xafiis dowladeed, waxaana loo doortay xubin gaar ah oo ka tirsan aqalka wakiilada ee Zanzibar, waxaana u magacaabay madaxweyne Amini Karumi. waxayna ahayd haweeneydii kaliya ee dumar ah oo darajo sare leh oo ka tirsan golaha wasiirada, iyadoona xusid mudan tahay in wasiiro ka tirsan xukuumadda ay hoos u eegi jireen sababo la xiriira jinsigeeda. mar labaad ayaa dib loo doortay 2005 waxaana mar kale loo magacaabay wasiir iyadoona loo magacaabay jago kale. sanadkii 2010 waxay raadisay in loo doorto golaha qaranka iyadoona u istaagaysa deegaanka baarlamaanka ee Makunduchi oo ay ku guuleysatay in ka badan 80%. madaxweyne Jakaya Kikwete ayaa u magacaabay inay noqoto wasiir dowlaha arrimaha midowga. sanadkii 2014 waxaa loo doortay gudoomiye ku-xigeenka golaha ansixinta dastuurka ee loo xil saaray diyaarinta dastuurka cusub ee dalka. bishii Luulyo 2015 musharaxa madaxweyne ee CAM ee John Magufuli wuxuu u doortay inay noqoto ku-xigeenkiisa doorashada ee 2015, taasoo ka dhigaysa haweeneydii ugu horeysay ee madaxweyne ku-xigeen ka noqota taariikhda xisbiga. waxay markii dambe noqotay haweeneydii ugu horeysay ee madaxweyne ku-xigeen ka noqota taariikhda waddanka kadib guushii Magufuli ee doorashada. geerida madaxweyne Magufuli ee 17 Maarso 2021, Suluhu oo ah madaxweyne ku-xigeenka waxaa loo dhaariyay xilka madaxweynaha 19 Maarso 2021. Suluhu waxay si rasmi ah u noqotay madaxweynaha lixaad ee Tanzania, waxayna sidoo kale noqotay haweeneydii ugu horeysay ee qabata xafiiska waddanka, waxayna sidoo kale noqotay qofkii labaad ee reer Zanzibar ah iyo kadib Ali Hassan Mwinyi oo shaqeeyay sanadihii 1985 ilaa iyo 95 iyo muslimkii saddexaad kadib Mwinyi iyo Jakaya Kikwete. waxay kaloo noqotay mid ka mid ah 2 haween dumar ah oo madax ka soo noqday dalalka Afrika iyadoo ay wehelinayso Sahle-Work Zewde oo u dhalatay waddanka Ethiopia. nolosha shakhsiga sanadii 1900
78 Suhulu waxay guursatay Xafiid Amaar, waqti xaadirkan ah sarkaal howlgab ah oo arrimaha beeraha ah, waxayna leeyihiin 4 caruur ah. Gabadheeda Moana Xafiida Amaar waxay dhalatay sanadii 1982. Cunugooda labaad waa xubin gaar ah oo ka tirsan aqalka wakiilada ee Zanzibar. Saamiya Suluhu Hassan ayaa taariikhda u gashay dalka Tanzania kadib markii ay noqotay haweeneydii ugu horreysay ee dalkaasi madaxweyne ka noqota, waxayna bedeshay John Magufuli oo si lama filaan ah geeridiisa loo baahiyey. Haweeneydan ayaa loo dhaariyey xilka madaxweynenimada ee dalka Tanzania iyadoo kitaabka Quraanka gacanta ku haysa, waxayna dhaarinta ka dhacday aqalka looga taliyo dalka ee ku yaal caasimadda ganacsiga ee dalkaas ee Dar es Salaam. Ibrahim Juma oo ah xaakimka guud ee dalkaas ayaa dhaariyey Saamiya Suluhu Hassan, waxayna muddo 6 sano ah ku xigeen u ahayd madaxweynihii geeriyooday, waana qof ay aad u ammaaneen xildhibaanada dalkaas. Saamiya waxay xukunka dalkaasi sii haynaysaa muddo 4 sano iyo bar ah oo ka dhiman muddo xileedka madaxweynihii geeriyooday, waxaana kadib loo dareeri doonaa codeynta lagu dooranayo madaxweynaha xiga sida uu qabo dastuurka dalka Tanzania. Saamiya oo warbaahinta la hadlaysay ayaa waxay tiri, waxaan ballan qaadayaa inaan daacad noqdo oo aan caddeeco dastuurka Tanzania, ayay tiri Saamiya Hassan kadib dhaarinteeda. sidoo kale waxa ay aad uga fogaatay ammaanta madaxweynihii geeriyooday ee dalkaasi John Magufuli, kaas oo ay tan iyo sanadkii 2015 la soo shaqeysay. haweeneydan waxaa si weyn loogu xasuustaa inay isbitaalka ku booqatay hogaamiyihii mucaaradka Tundu Lissu, kaas oo dil ka badbaaday sanadkii 2017, talaabadaas oo dad badan ay ku taageereen.